dalka Uganda oo sheegtay in weerar gaadmo ah ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin Al-Shabaab isla markaasna ay ku dileen 189 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. qodobada kale aad daawadayaal ku daawan doontaan channelkeena Zucamada Officialna waxaa ka qayb noqon doona maxay u bixi laayihiin ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha dalka Liibiya. waa warbixin aan idin hayno isla markaasna aad dhuuxi doontaan nuqulka ay xambaarsan tahay. qodobadaas faahfaahintooda ayaa goordhow daawan doontaan daawadayaal, balse marka hore muuqaalkan like saar oo la wadaaga saaxiibtaada si aan u helno saaxiibo fara badan sida adiga oo kale. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso. fadlan channelkeena subscribe inoo saar si aan u helno saaxiibo fara badan oo ka faa'iida macluumaadka tiraha badan oo aynu halkan soo gelino saacad kasta iyo xilli waliba. markana daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii hordhaca daawateen oo intaasi kasii faahfaahsan. waxaanu ku bilaabayaa war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Uganda ayaa lagu sheegay in weerar gaadmo ah ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ayna ku dhinteen 189 dagaalamayaal oo ka tirsan ururkaasi. inkastoo dowladda federaalka aysan si rasmi ah uga hadlin arrinkan ayaa haddana wakaaladda wararka ee dowladda Arizona waxay ku soo warantay in howlgalka ay qayb ka ahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu soo qabtay 2 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. ciidamada wadajira ayay sidoo kale soo warisay in howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaano badan oo ka tirsan Shabeellada Hoose. ciidanka Uganda ee UPDF loo soo gaabiyay ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Uganda ayaa sheegtay in ciidamadooda ka tirsan AMISOM ay maalin ka hor weerareen goob ay sheegeen in ay ku dhuumaalaysanayeen Al-Shabaab gaar ahaan deegaanada Sigale, Adimole iyo sidoo kale Kayitoy oo qiyaastii 100 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. weerarka ay qaadeen ciidamadeena waxay ku qaarijiyeen 189 ka tirsan Al-Shabaab waxaana lagu burburiyay agab military oo ay kooxda isticmaalaysay ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay ciidanka Uganda. waxa kale oo ciidamada Uganda sheegeen inay gacanta ku dhigeen xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ay sheegeen inay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya. afhayeenka ciidamada Uganda Colonel Deolo Akiki waxa uu sheegay in weerarka ay ku qaadeen Al-Shabaab uu ka koobnaa dhul iyo cir, waxaana uu yiri waa tiradii ugu badneed ee laga dilo Al-Shabaab maalin qura. Colonel D Akiki oo sidoo kale la hadlay wakaaladda wararka ee AB loo soo gaabiyay ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo ka soo gaaray ciidamadooda. ciidamada Uganda oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ayaa shaqadoodu tahay inay dowladda Soomaaliya ka caawiyaan dhanka ammaanka gaar ahaan dagaalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada ciidamada Uganda, mana jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta hadalka ka soo yeeray afhayeenka militariga Uganda. ugu dambeyn daawadayaal ciidamada ajaanibta ee ku sugan Liibiya ayaa u muuqda kuwa iska indha tiray waqtiga loo qabtay in ay uga baxaan dalka iyadoo la raacayo heshiiska xabad joojinta. labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalka Liibiya ayaa waxa ay taageero ka kala helayaan quwado shisheeye oo dibadda ka soo kaalmeeyo. dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee ka jirta caasimadda Tripoli ayaa waxa in muddaaba caawinaya militariga dalka Turkiga oo calooshoodu shaqaystayaal ka soo duulay dalka Suuriya si ay gacan u siiyaan dowladda. dhinaca kale taliyaha saldhigiisu yahay bariga Liibiya General Khalifa Haftar waxaa taageeraya calooshoodu shaqaystayaal ka socda dalka Ruushka. heshiiskii xabad joojinta ee garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay ee la saxiixay muddo haatan laga joogo 3 bilood ayaa dhigaya in dhammaan xoogaga shisheeye ay dalkaasi Liibiya isaga baxaan ugu dambeyn shalay oo Sabti ahayd. balse ilaa iyo hadda wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa waxa ay sheegayaan inaysan jirin astaamo muujinaya in ciidamada shisheeye ay dalkaasi ka baxayaan. dalka Liibiya oo ay ku hardamayaan dalalka ay ciidamadu ka joogaan, haddana waxaa muuqata in weli heshiiska hore looga gaaray ka bixitaanka ciidamadan aan lagu tilmaami karin inuu burburay, maadaama inta badan dalalka colaaduhu ka jiraan heshiisyada noocan ah ay muddo jiitamaan.
horaantii bishii Juun ee sanadii tagtay ayaa ciidamadii uu hogaaminayay Generaal Khalifa Haftar waxaa lagu qasbay in ay dib ugu gurtaan nawaaxiga magaalada Tripoli isagoo aad si adag isu difaacay. wuxuu sidaa ku lumiyay dhul uu ku qabsaday dagaal adag oo muddo sanad ah socday. dowladda qaramada midoobay aqoonsanta ee Liibiya waxaa arintaasi ka caawiyay dowladda Turkiga. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xoogaga Khalifa Haftar iyo taageerayaashiisa ay caqabad ku yihiin nabadda Liibiya. Erdogan iyo ra'iisul wasaare Fayez ayaa 4 bishan Juun shir jaraa'id ku qabtay qasriga madaxweynaha Turkiga ee ku yaala Ankara waxayna ka hadleen xaaladda Liibiya iyo sida loo nabadeynayo. doorka Ruushka iyo Turkiga ee Liibiya ayaa sanadkii hore aad sare ugu kacay waxayna ciidamadooda ka kala joogeen qaybo badan oo dalkaasi ka mid ah inkastoo dalal kalena ay kaalin ku lahaayeen dagaalkaasi. sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaalyahano Suuriya u dhashay ay qayb weyn ka yihiin dagaalka Liibiya kuwaasi oo qaarkood halkaasi lagu arkay markii Turkiga oo qayb ka noqday dagaalka dalkaasi ka socda. markii hore dagaalamayaashaasi waxay ka tirsanaayeen dowladda Al-Wifaaq balse waxaa jiro warar sheegaya in Ruushka uu Liibiya geeyay dagaalamayaal calooshoodu shaqaystayaal oo Suuriya u dhashay kuwaasi oo caawinaya Generaal Khalifa Haftar balse weli ma cadda kaalinta ay ku leeyihiin dagaalka. tan iyo sanadii 2015 dalka Liibiya wuxuu u qaybsanaa laba dowladood oo bari iyo galbeed ah. Haftar ayaa fadhiisimo ka dhigtay bariga dalka halka dowladda Liibiya markaasi ka ariminayso gacan ku haynta galbeedka dalkaasi. guud ahaan daawadayaalkaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamij wareedkii aad ku daawanayseen channelkeena Zucamada Official. fadlan muuqaalkan like saar oo la wadaaga saxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. tan iyo warkan kiisa xiga inta dib isugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. dalka Uganda oo sheegtay in weerar gaadmo ah ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin Al-Shabaab isla markaasna ay ku dileen 189 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. qodobada kale aad daawadayaal ku daawan doontaan channelkeena Zucamada Officialna waxaa ka qayb noqon doona maxay u bixi laayihiin ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha dalka Liibiya. waa warbixin aan idin hayno isla markaasna aad dhuuxi doontaan nuqulka ay xambaarsan tahay. qodobadaas faahfaahintooda ayaa goordhow daawan doontaan daawadayaal balse marka hore muuqaalkan like saar oo la wadaaga saxaabtaada si aan u helno saaxiibo fara badan sida adiga oo kale. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso. fadlan channelkeena subscribe inoo saar si aan u helno saaxiibo fara badan oo ka faa'iida macluumaadka tiraha badan oo aynu halkan soo gelino saacad kasta iyo xilli waliba. markana daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii hordhaca daawateen oo intaasi ka sii faahfaahsan. waxaanu ku bilaabayaa war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Uganda ayaa lagu sheegay in weerar gaadmo ah ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab